السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا وناكسن كسر دوادا قصة كعبر قادة شمودن لبويل أو دلنيرة ورير سعودي هيا أصفري دلك تركيا قاسة مقالة اسطنبول أيجو كي يمد مقالة المدينة أيجو دون يهالكاس إنه كسر دل حسان قمر إنه كسر عبان مركي أي جارين مقالة اسطنبول وحي يبسدين دلوين قمري markii ay soo iibsadeen dhalooyinkii qamriga ahaa waxay kireysteen taxi waxayna dageen hudeel waxa soo dhaweeyay qofkii fadhiyay meesha dadka lagu soo dhaweeyo ninkii ayaa weydiiyay meesha ay ka yimaadeen waxay dhaheen waxaan ka nimid magaalada Madiina oo ah halkii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku aasnaa ninkii ayaa ku farxay maadaama ay ka soo jeedaan magaaladii uu nabigu ku aasnaa sallallahu alayhi wasallam wuxuu u soo dhaweeyay si wanaagsan oo heer sare ah asagoo ku darajaynaya jacaylka rasuulka sallallahu alayhi wasallam labadii wiil aad ayay u farxeen qolkii ayayna dageen halkaas ayayna bilaabeen inay habeenkii oo dhan qamri ku cabaan ilaa uu mid kamid ah aad u sarqaamay wax yar kadib albaabkii ayaa la soo garaacay labadii wiil mid kamid ah oo miirkiisu wali joogo ayaa soo istaagay albaabkii ayuuna furay asagoo hal isku haaya indhahana aan aad u kala qaadi karin wuxuu arkay ninkii meesha ku soo dhaweeyay wuxuu yiri imaamka masaajidku wuxuu diiday inuu salaada dujiyo ayada ay joogan laba wiil oo kamid ah oo ka yimid magaaladii oo ku duugnaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida darteed waxaan idinku sugaynaa guriga aad degantiin dabaqiisa afaraad halkaas inoogu imaada wiilkii ayaa aad u naxay wuxuuna u tagay saaxiibkiis wuxuu ku yiri wax quraan ah ma xifidsan tahay wiilkii kale ayaa ku jawaabay anigu ma noqon karo imaam waayo quraan ma aqaano waxay ku fakareen sidii ay dhibaatada uga bixi lahaayeen ninkii ayaa mar labaad ku soo laabtay wuxuuna ku yiri idinka ayaa la idin sugayaa ee soo dhaqsada salaadu yeysan naga tagine wiilkii suuliga ayuu galay qubays ayuuna isku boobay wuu soo dagay masaajidka ayuu soo galay markii uu masaajidku soo galay wuxuu arkay masaajidkii oo aad u buuxo oo malayso inay maalin jimcaad tahay wuxuu galay salaadii wuxuuna noqday imaam wuxuu bilaabay inuu aqriyo suuratul faatiha markii uu bilaabay alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkii oo dhan way ooyeen ayagoo xasuusanaya masjidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam wiilka asaguna wuu ooyay wuxuu labadii ragco ku aqriyay suuratul faatiha iyo suuratul ikhlaas maxay yeelay quraanka lama uu xifdisanayn markii salaadii laga baxay ayay dadkii ku soo xaameen ayagoo u duceynaya maadaama uu xusuusiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayna ka yimaadeen magaaladii uu ku duugan yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam balse arintaani waxa ku toobad keenay labadii wiil xumaantii ay ku jireen way ka soo laabteen labadii wiilkii salaada dujinayay wuxuu noqday daaci diinta faafiya kadib markii uu ahaa mid xumaanta sameeya ilaah wuxuu ugu bedelay wanaag inuu faafiyo subxaan allah qisadan halkaas ay inooga eg tahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh